agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland mudane Axmed Cabdi Ismaaciil oo ku taagan tallaabooyinkii xukuumadda ee horumarinta biyaha Somaliland oo maalmihii ugu dambeeyay kormeer shaqo ku mariyay gobolada bariga Somaliland ayaa maanta soo gaadhay gobolka Gabiley. Ujeedka socdaalka agaasimaha ayaa salka ku ayad xoogaal noqoshada xaaladda biyaha gobolka iyo tallaabooyinka horumarineed ay gaadheen wakaaladaha kala duwan ee ka howlgala gobolka Gabiley, waxyaabaha u qabsoomay wixii qorsheysan, caqabadaha hortaagan iyo waxa dhiman. waxaana agaasimaha safarkiisani ku weynayay agaasimaha waaxaha wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland ee qorsheynta, agaasimaha waaxda ceelasha, agaasimaha waaxda wakaaladaha, agaasimaha waaxda kormeerka iyo dabagalka iyo mas'uuliyiin kale. Barbirona waxa uu agaasimuhu socdaalkiisa ka bilaabay degmada Arabsiyo ee gobolka Gabiley, waxaana uu horreynba kulan la yeeshay maamulka wakaaladda biyaha ee magaalada Arabsiyo. intaasi kadibna agaasimaha iyo wafdigu hogaaminaya ayaa soo gaadhay magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka, waxaana mas'uuliyiintani kulan la yeesheen maamulka iyo shaqaalaha wakaaladda biyaha ee magaalada Gabiley ee caasimadda gobolka. kulankaas oo lagu falanqeeyay horumarinta biyaha magaalada Gabiley, waxyaabaha wakaaladda u qabsoomay, waxa dhiman iyo caqabadaha hortaagan. intaas kadib agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland Axmed Cabdi Ismaaciil iyo wafdigiisa ayaa jarmaaday magaalada Togo Jaale ee xuduudda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Itoobiya oo ay kormeer kala duwan ku mareen bishiinada biyahaas iyo magaalada xarunta kaydka biyaha Wajaale, waxaana kulan la yeesheen maamulaha wakaaladda biyaha ee magaalada Wajaale iyo shaqaalaha wakaaladda. kulanadani uu agaasimuhu la yeelanayay wakaaladaha kala duwan ee gobolka ayaa mid lagu xoojinayo horumarinta biyaha laguna ogaanayo xaaladaha dhabta ee ka jira xilligani wakaaladaha. agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Somaliland oo si wata safarkan kurgalka ayaa kormeer ku soo maray ceer ku yaala magaalada Kalabayd iyo sidoo kale ceelasha Bator ee biyahaas iyo magaalooyinka Wajaale iyo Gabiley iyo xilligan sida u shaqeynayaan. waran waxa halkaasi ka maamulaha wakaaladda biyaha Wajaale Mukhtaar iyo sidoo kale maarayaha guud ee wakaaladaha biyaha ee gobolka Gabiley Maxamuud, waxaana ay yiraahdeen wafdiga madaxda sharafta leh ee maanta gobolka noogu timatay gaar ahaan degmooyinka Kalabayd iyo Gabiley iyo Arabsiyo iyo Wajaale hawl muhiim ah u socday, taas oo ah hawl u kuurgal hawlaha biyaha ee gobolka xaaladda ay ku sugan yihiin, wixii wakaalada ay u dhisan yihiin, wakaaladuhu sida u shaqeynayaan, waxa ka dhiman iyo wixii waxqabadey ay muujiyeen. kormeerka si fiican ayuu noogu dhacay. Arabsiya laga soo bilaabay, informationkii waa la qaatay, wixii qabsoomay, waxaan qabsoomin Gabiley kadaalik imiga oo aynu joogno Kalabayd informationkeygii agaasimaha waa la siiyey. Wajaale oo agaasimuhu tegey, wixii qabsoomay, wixii aan qabsoomin, wixii qabyo ah iyo wixii qorshe ee ku talagal ee loo samaynayo oo iyadana agaasimuhu uu soo qortay oo xogogaal u soo noqday. iyadoo uu daaran yahay safarkan iyo socdaalkani u kuurgalka hawlaha biyaha ee gobolka Gabiley. waxaanu soo maray saaka wafdigu magaalada Arabsiyo, degmada Arabsiyo oo ay u soo kuurgaleen hawlaha biyaha ee halka ka socda iyo ceelasha biyaha, shaqaalaha iyo maamulkoodaba. waxa ku xigay degmada Gabiley, magaalada Gabiley oo ay ka dhisan tahay wakaaladda biyaha, wakaaladda horumarinta biyaha ee Gabiley. runtii halkaas oo iyadana uu kuurgalay. waxa intaa raacsanaa Wajaale oo si tallaabo ah oo si mug leh runtii ay uga soo bogteen kormeerkan oo la xiriira bal hadda hawlahaas ay u socdaan. waxa weeyaan si fiican buu u dhacay maanta. aad iyo aad baan uga mahad celinayaa wafdiga ballaaran ee hogaaminaya agaasimaha guud iyo agaasimayaasha waaxyuhu. aad baan uga mahad celinaa. waxaan leenahay socdaalkiinu insha Allah tacaala iyo ku koobnaan maanta oo kaliya baraarujin iyo waxqabad iyo horumarin aad bay noogu qiimo noogu leedahay annaga. tukro halkaasi ka hadlayay suduwa wasaaradda kheyraadka iyo horumarinta biyaha Mukhtaar Cumar Dagaal oo wafdigan ku soo dhaweeyay gobolka Gabiley iyo sidoo kale xubin ku hadlaysay afka agaasimo waaxeedyada. wafdi ballaaran oo aan ku soo dhaweeyno agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyada afarta agaasimo waaxeed ee kormeerka noogu yimid. kormeerkoogana soo socday oo 6 gobol baa ay ku marayaan. aad baan ugu soo dhaweeynaa gobolka Gabiley. waxaanu muxuu ahaay kormeer maanta ku soo marnay magaalada Arabsiyo, Gabiley iyo Wajaale. iminkana waxaanu taaganahay Kalabayd. kormeerka iyagu ku daaran yahay sidii aanu qorshaha iyo baahiyaha aanu isugu salayn lahayn oo u ogaan lahayn maxaa lahday baahiyaha biyaha ee maxaa lahday gobolka ka jira, wixii caqabada ee hortaagana aanu soo daraasayn lahayn, runtiina aanu wada tashi u samaysan lahayn maamulka biyaha ee gobolka noo jooga. horumarinta biyuhu ay ka bilaabmaan
nimacaliya sidirna noo soo dhaweyseen gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta kheyraadka biyaha Somaliland Axmed Cabdi Ismaaciil. socdaalka iyagani wuxuu daba socdaa oo ugu daba xiriirsan yahay socdaalada tirada badnaa ee gobolada qaranka aan ku soo marnay ee gobolka Gabiley gobol runtii waxa weeyaan aad u weyn xagga biyahana waxa weeyaan baahi badan u qaba haba saatay Ilaahay xamdiga wuxuu ku jira gobolada baahida biyihiisu ay 80% soo dhameystiray loo baahan yahay tahay 20% ka dhimanna dhameystiro sidoo kalena wixii dayactira ama emergency soo baxana taa waxa uu la sameeyay marka waxa weeyaan gobolada dalka oo dhan taa marka waxaan mahadnaqaynaa cid kastoo maamul ahayd oo ka qayb qaadatay inay magaranayay horumar ku sameeyso biyaha gobolka Gabiley oo runtii saad ka dareemaysan hadalka iyagaba ilaa waxa weeyaan jaranjaradii kala duwaneed ee faraha badnayd ee xagga maamulka dawladda laakiin waa weynaa Arabsiya ay kamid ahayd Gabiley ay kamid ahayd Wajaale waxa leeyihiin nidaam oo wakaaladeed oo dhameystiran oo maareeyaheedii ka bilaabmaysa ama maamulihii oo ku dhamaanaysa waxa weeyaan intaas shaqaalihii ay u shaqeeyaan oo taas ay tahay waxa weeyaan inay wax ka fuliyaan waxa weeyaan siyaasadda qaranka ku wajahan arrinta biyaha waan ku mahadnaynaa runtii baahiyaha gaarka ah ee kooban runtii oo aan la qabin kuwa kale ay ka baahi kooban yihiin waxaan insha Allah taala aan ballan qaadanaynaa wixii laga soo dhameystirno waxaan qorshaha iyaga oo ahaa inaan baahidaasi soo ogaano dhinaca kale waxaan aad uga dardaaranay labada leefal ee maamulka ay kala leeyihiin midna gobolka ay tahay oo isuduhu joogo wasaaradda iyo taqarankaba ee biyaha la xiriirsan isugu fuliyo midna ay tahay biyo fidinta iyo biyo qaybinta oo maarayaasha iyo maamulayaasha ay leeyihiin mid kasta waxaan kula dardaarminaa shaqadiisa oo ahayd in maarayaasha iyo maamulayaasha waxa weeyaan biyo wanaagsan oo nadiifa oo haqabeela ay meelba ay gaarsiiyaan wixii caqabad ku yimaadana heer qaran iyo heer degmo labada loo tashado dhinaca isuduwahana waxaan kula dardaaranay la xidhiidha waxa weeyaan gobolkiisaasi inuu isaguna xoojiyo taasoo ka bilaabmaysa in dabagal ku sameeyo mashruuc kasta oo ka socda aan ogeyn iska badaayay laakiin kuwan ognahay laftigeeda in la daba socdo kuwan aan ogeyn hadday yimaadaan inuu markaa dabagal ku sameeyo warbixin ka keeno dabeetana waxa weeye hadday tahay riikaligi socda hadday tahay ceel iska qodanayo hadday tahay dhaam iska sameysanayo waxa dhan socon maayaan waxa soconaya waa hanti qaran biyuhu hantida qarankana waxaan xisaabteeda iyo horumarinteeda cid baa leh dadku inay ku hirtaan sharciga inuu markaa shaqayn doono marka sharciga biyaha ayaa isu duway insha Allah taala aad inoogu shaqayn doona waxaan taa noo dheer isla maanta xilliga aan taaganahay wasiirkii wasaaradda biyaha Maxamed Muuse Diiriye wuxuu ku sugayay magaalada Boorama oo gobolka Awdal isaguna hawsha biyaha oo gurgalkeeda marka waxaad moodaa wasaaradda hadda kolka banaan ku shaqaynayso oo hawlaheedii ay banaanka aynu kolka ka hawlgelayno wax kale oo jira tiiman kale iyaguna baray ku maqan hadda oo dhinaca sanitationka iyo fayadhowrka ku maqan marka kulli wasiirku birino soo mari doona Gabiley anaguna Awdal baan dhaafeynaa Awdal iyo sidoo xaggana sugayo oo si dhaafi doona waxa soo markaa socdana dema baashaalayna waxaan ku soconaa waxa weyn hawlgalka waxa weeyaan siyaasadkaasi biyaha iyo horumarintooda iyo baahiyahooda iyo daraska iyaga sida uu yahay inaan markaa ka hawlgalno weeye hawlgalkan uu socon doonaa in wax noo arsan inaan tagno geed balaad iyo Allah baynaan soo marno oo gobolka Gabiley hadda noo dhiman xilligan joogno labada duhurnimo gabagabadii agaasimuhu wuxuu kormeerkiisana ku maray magaalooyinka Allah bariye geed balaad si loo ogaado xaaladda dhabta ah ee biyeed ee magaalooyinkaasi waa yalla xaaji telefishinka qaranka Gabiley.